Saylac magaalo qadiimi ah oo soo jirtay kumanaan sano ka hor. Muuqaalkan waxaan kaga warrami doonaa magaalo xeebeedkaas qadiimiga ah ee dhacda waqooyiga Somaliland ee Saylac oo dhawaan aan safar ku gaarnay. safarka Saylac wuxuu nooga bilaabmay magaalada Hargeysa waqti galin dambe ah waana safar qaadanaya saacado badan oo aan ka yareyn dhowr iyo 10 saacadood. Socodkaygu wuxuu u badnaa habeenimo. Magaalada aan u soconana waxaan gaari doonaa xilli dambe oo habeenimo ah. safarka Saylac runtii ma aha mid si fudud lagu tagayo oo waxa diyaar u ahaan haddaad istiraado amba damacdo inaad dhulkaas tagto dhul aan baaxadiisu ka yareyn 370 kilomitir oo waliba raf u badan sababtoo ah magaaladu ma laha wado wanaagsan oo ku fududeynaysa socdaalkaagaas. muddadaas aad dhexda ku jirtana waxaad dhex mari doontaa dhul kala duwan oo isugu jira buuro, bacaad, dooxyo, kaymo, bannaan saxara ah, jarar dhaadheer iyo meelo kale badan. شرف كوها جوجني عيداد وهضن أتكوها قبيشة وهل الذينو هروين كو إرمانو أتكو هيرانيسي kadib markaad magaaladan soo gaadho waxaad la kulmi doontaa waxyaabo badan oo aad u cajiib ah oo aad nafsiyan ku degi doonto marka laga yimaado goobaha taariikhiga ah iyo meelaha kale aadka u qurux badan ee magaaladan Saylac la gaar ka tahay. magaaladan waa magaalo degan oo buuqeedu aanu badnayn. waa magaalo ay ku nool yihiin dad gob ah oo soo dhaweeya dadka martida ku ah. waana magaalo dadkeedu iska kooban yihiin. imaanshaha Saylac iyo safarka dheer ma aha mid aad ka warwari doonto kadib markaad aragtid magaaladan siday tahay iyo taariikhda tuugan. adihii Cusmaaniyiintu dhiseen boqolaal sano ka hor. muddo hadda laga joogo ku dhowaad 700 sano ayaa la dhisay dhismayaashan ay sii muuqdaan raadadkoogii kuwaasoo weli magaalada ka dhex muuqda. dhismayaashan oo ka samaysan dhagax keliya ayaa qaybo ka mid ah magaalada lagu sii dhex arkaya. dadka deegaanku waxay noo cadeeyeen in dhagaxaantan ay yihiin kuwa badda dhexdeeda laga helo oo shacaabigu ka mid yahay. magaaladan cajiibka ah taariikhdeeda ragga wax ka qoray xilligaas waxaa ka mid ah Ibn Battuta oo la sheegay inuu buugaag badan ka qoray. masaajidka Qiblateynka oo la dhisay kumanaan sano ka hor. masaajidkan oo magaciisa loo yaqaan Qiblateynka ayaa ka mid ah goobaha taariikhda weyn ee soo jireenka ah kuna yaala magaaladan. masaajidkani wuxuu magacaas ku qaatay inuu soo jiray waqti dheer kaasoo markii hore loo tukan jiray dhinaca Baytul Maqdis kadibna Ilaahay uu amray nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam inuu u tukado dhinaca xaramka ee Makka al-Mukarrama ee aan imika u tukano. magaaladan cajiibka ah ee Saylac waa magaalo taariikh fac weyn ku leh Islaamka oo dhan iyo Soomaalidaba waxaana taariikhyahanadu sheegeen inay tahay magaaladii diinta islaamka ka soo gashay geeska Afrika oo saxaabada rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam soo mareen markii ay u soo hijroodeen dhulka Xabashida kana soo baxeen dhibta ay Qurayshi ku hayso. kuwaasna waxaa ka mid ah Cusmaan bin Affan iyo xaaskiisii oo ah inantii rasuulka sallallahu alayhi wasallam iyo Jacfar bin Abi Talib. cisbitaalka guud ee magaalada Saylac 1939. cisbitaalkan magaalada Saylac ku yaala waxaa dhismihiisa la fuliyay muddo hadda laga joogo 83 sano ka hor. waa ku dhowaad hal qarni ayuu dhisnaa welina waa shaqeeya oo bulshada reer Saylac waa loogu adeegaa. waana cisbitaal cimri dheer. dekada qadiimiga ah ee magaalada Saylac. magaaladan Saylac waxa ku taala mid ka mid ah dekadaha ugu qadiimisan Somaliland. waana dekad soo jireen ah inkastoo aanay helin daryeelkii ay mudnayd ee dawladnimo sida ay noo sheegeen dadka deegaankuna. dekadan hore waxaa looga dhoofin jiray waxyaabo yar oo uu ka mid yahay buurigu. madxafka taariikhda ee magaalada Saylac. halkan waa dhismo qadiimi ah oo ka samaysan dhagax keliya kaasoo dhismihiisa la dhisay boqolaal sano ka hor. waa goob taariikhi ah oo taariikhda magaalada Saylac lagu ururin jiray siday noo xaqiijiyeen dadka deegaanku. waana mid ka mid ah meelaha ugu cajiibsan magaaladan aan ku aragnay intii aan magaalada joognay. dhowaan ayay xukuumadda Somaliland dib u habeyn ku samaysay sida idiin muuqata. waanan ku hambalyeynaa dowladda maadaama ay xil iska saartay hagaajinta goobtan taariikhiga ah. fiiro gaar ah madxafkan waxaa warbixin faahfaahan inaga siin doonaa nin ka mid ah dadka deegaanka waxaanaad ku daawan doontaan muuqaalka xiga kan insha Allah.
lacagaha laga helay magaaladan qadiimiga ah ee Saylac. Xilliyada roobka kadib haddaad magaalada dhex marto halka ay ku yaalaan dhismayaasha qadiimiga ah waxaad ku dhex arki lacago roobka soo saaray, taasoo cadaynaysa inay meeshan hore u joogeen qowmiyado hore oo kala duwan. Magaaladuna tahay magaalo taariikhi ah oo soo jireen ah. Nin ka mid ah dadka deegaanka ayaa lacagahan ururiyay una haya taariikhan, isagaana inooga warramaya lacagtan iyo siduu ku helay iyo qowmiyadaha lacagtan iska leh. Muuqaalka xiga ayaad wareysigiisa ku daawan doontaan insha Allah. Xabaalaha soo jireenka ah ee Shalambila. Qubuurahan waxaa la sheegaa inay ku aasan yihiin dad badan oo Saylac soo maray oo ay ka mid ahaayeen Cusmaaniyiintii. Waana xabaalo qadiimi ah oo soo jireen ah, waxaana ku yaala bartamaha magaalada Saylac. Qudbiga Sheekh Ibraahim Saylici oo dhisnaa muddo dheer oo ku yaala afaafka hore magaalada Saylac waa goobaha taariikhiga ah ee magaalada Saylac siday dadka deegaanka noo sheegeen. Waxaa ku aasan sheekha leh magaca magaalada Ibraahim Saylici. ciyaaraha ugu caansan ee Saylac laga ciyaari jiray waxaa ka mid ah ciyaarta Sayliciga loo yaqaan oo soo jireen ahayd taariikh weyn ku leh reer Saylac. muuqaalkan kuma soo koobi karno waxyaabaha qariibka ah ee magaalada Saylac la gaar ka tahay ee muuqaalo kale ayaa jira insha Allah. xayawaanka dameeraha iyo ayda magaaladan kuma noolaan karaan kamana ciyi karaan sidee noo cadeeyeen dadka deegaanku. taasna annagu intii aan magaalada joognay kumana arag labada midna, waana cilmi rabbi oo baaritaan u baahan. taas bedelkeeda magaalada waxaa si xad dhaaf ah u jooga xayawaanka dacwada oo markaad magaalada soo galaysaba aad ku arkayso wadooyinka magaalada laga soo galo iyo gudaha magaaladaba. sharaf kugu hagoogan ciidadu waa hodan aad ku haqabeeshe waa haleeladiino horweyn ku irmaano aad ku hiiranayse callankaagu waa hibo sharaf kugu hagoogan ciidadu waa hodan aad ku haqabeeshe waa haleeladiino horweyn ku irmaano aad ku hiiranayse haybadu waxaad ku leedahay dhulkaaga hoyo haybadu waxaad ku leedahay dhulkaaga hoyo wana lama huraane hagarli wax ugu qabo wana lama huraane hagarli wax ugu qabo. muuqaalkan oo noqonaya qaybtii koobaad ee kaga warramaynay safarkeena magaalada Saylac aan ku gaarnay intaas ayaan ku soo koobnaa, balse waxaad sugi doontaan oo la socon doontaan barnaamijyada xiga oo aan kaga warrami doono isla magaalada Saylac iyo taariikhdeeda baaxadda weyn. waxaad sidoo kale ku arki doontaan wareysiyo aan la yeelanay rag ka mid ah dadka deegaanka. barnaamijka waxaa idinla socodsiinayay anigoo Ridwaana. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi